inta uunan Alle subxaanahu wa ta'aala in abuurin koor waxa uu malaa'igta la wadaagay inuu dhulka dhexdiisa ka yeelayo khaliif deedna waxay malaa'igtu ku jawaabeen Allah ma waxa dhulka dhexdiisa ka yeelaysaa kuwa fasahaadiya misana dhiig ku daadiya innaga ayaa ku tasbiixsanayna kugu mahdinayna kuna taqdiisinayna oo ku dahirayna si Alle subxaanahu wa ta'aala wuxuu ugu jawaabay malaa'igtii waxaan ogahay wax aadan idinku ogeyn oo Alle subxaanahu wa ta'aala waxa uu ogaay in aadanuhu uu noqon doono mid camira adduunka mid ka adkaado duruufaha nolosha una bedelo fursado mid raadiya aqoon misana baaro xogaha qarsoon ee ku gadaaman dabeecadda deedna waxa uu dhidibada u taaga aadanihii wax loo bixiyaa saynis sida aan wada ognahayna saynisku had iyo jeer waxa uu dhacdo waliba u raadiyaa sabab deedna kolku uu aadanuhu ogaado sababta arrin waxa daaqada ka baxa layaabkii kolkii hore uu ka qabay arrinta waana sababtii loo yiri idaa curifa sabab badala alcajab haddaba intaa kuma ekaanin aadanihii se waxa uu isbida aqoon iyo xog ogaalnimo isaga oo isku halaynaya sayniskiina waxa uu bilaabay inuu ka shakiyo wax waliba uusan ku ogaan karin sayniska waxyaabihii uu ka shakiyeen waxaa ka mid ah jiritaanka malaa'igtii lala wadaaga arrinkiisa intaanan isaga la abuurin ka hor haddaba daawade waxaynu barnaamijkeena maanta ku lafaguri doonaa maxaa loo abuuray malaa'igta muxuu aadanahu u arki waayay malaa'igta maxay tahay faa'iidada ay malaa'igtu u hayso aadanaha haddii uu Alle subxaanahu wa ta'aala wax waliba uu yiraahdo ahaw uu ahaanayo maxay tahay sababta uu howlaha adduun ugu wakiishay malaa'igta waxaa ka mid ah 99 magac ee Alle subxaanahu wa ta'aala magaca xakiim xigmad badane aqoon durugsan u leh arrimaha qarsoon iyo kuwa muuqdaba oo Alle subxaanahu wa ta'aala waa arrin waliba dhiga meesha ku habboon in la dhigo wax uu falay su'aal lagama weydiiyo wax uunan falinna la isma dul taago waana mid naftiisa ka fogeeyay xumaan iyo xiqdi oo dhan haddaba Allihii sifooyinkaas oo dhan u sugnaatay wax uu abuuray uuman kala duwan misana joogo goob waliba waxaana uumankiisa ka mid ah malaa'igta oo ah adooman la karaameeyay lagana abuura nuur la amrayaal wixii la amro sameeya misana aanan marnaba ku caasin Alle subxaanahu wa ta'aala waa uun laga saaray shahwe iyo damac waa uun aan waxba cunin waxnana aanan cabin habeen iyo maalin u taagan weynaynta Alle subxaanahu wa ta'aala tirada dhabta ah ee malaa'igta kaliya waxa yaqaan Alle subxaanahu wa ta'aala sadiintu waxay noo cadeysay inay aad u fara badan yihiin sida in maalinta koonka la abuuray ilaa iyo hadda inay maalin waliba baytul macmuur oo ah beed ku yaala samada toddobaad ay soo booqdaan misana ku cibaadaystaan 7,000 oo malag isla maalintaana ay goobta isaga caraabaan kumana soo noqdaan aabidkood sidoo kale nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu xadiis inoogu sheegay in maalinta qiyaamo la keeni doono jahannama oo ku xirxiran 7,000 oo katiinad walibana ay jiidayaan 7,000 oo malag oo malaa'igta jahannama jiidaysa oo kaliya ayaaba cadadoodu tahay 4 bilyan iyo 900 oo milyan oo malag haddaba malaa'igta dhexdeeda waxa ugu weyn misana quraanka lagu sheegay malakul jibriil oo ah malagii loo xilsaaray waxyiga mikaa'il oo ah malagii roobka iyo soo saarista dhirta israafiil oo ah malaga afuufayo buunka qiyaamo asraa'iil misana loo yaqaano malakul mawt oo ah malaga ruuxda dadka ka qaada sidoo kale quraanka iyo xadiista waxay noo sheegeen jiritaanka malaa'ig kale sida maalig oo ah malaga furaha naarta haayo ridwaan malaga furaha jannada haayo 8 malaa'ig ee sida carshiga ee baweyne munkar iyo nakiir oo ah labada malaa'ig ee dadka qabriga ku su'aala haaruud iyo maaruud oo ahaa labadii malag ee laga dejiyay dhulkii baabil haddaba si guud waxa qof waliba oo muslima ku waajib ah rumaynta jiritaanka malaa'igtaas waana tiirka labaad ee tiirarka iimaanka qofkii aanan rumayn jiritaanka malaa'igtana waxa uu ka baxay diinta islaamka haddaba innaga oo xogtaas guud haysanana aynu u imaano ka jawaabista su'aashii ahayd muxuu aadanaha u arki waayay malaa'igta inta aanan su'aasha ka jawaabin ka hor aadib ugu noqono casharadii aan ku soo qaadan jirnay fiisigiska ee la xiriiray jabaqda ama codka jabaqda waxa lagu qeexaa inay tahay nooc ka mid ah tamarta uu gariirku sameeyo cod waliba aynu maqalnana waxa uu soo gaaraa isagoo ku socda hanaan mawjadeed waxaana loo yaqaanaa rakaad codeed sida adkaha loogu cabiro kiilogaraamka dareerahana loogu cabiro liitarka ayaa rakaad codeedkana loogu cabiraa wax loo yaqaano hertz oo haddii muujad codeed uu hal wareeg ku jaro hal ilbiriqsi
muujad codeedkaasi rakaadkiisa waa 1 hertz haddii uu kun wareeg ku jara 1 ilbiriqsina waa 1 hertz ka aadana ahaanna waxaynu maqli karnaa inta u dhaxaysa 20 ilaa 20 kun oo hertz oo haddii ay jabaqdu ka yaraato 20 hertz waxaa loo yaqaanaa infrasound oo dhagaheenu ma maqli karaan halka haddii ay ka badato 20 kun oo hertzna loo yaqaano ultrasound oo dhagaheenu uma adkaysan karaan inay maqlaan jabaqdaas labadaas jabaqna inaynu maqli weyno faa'iido weyn ayaa inoogu sugan bal suurayso haddii aad maqli lahayd socodka quraanjada ama xasharaadka dhulka heehaabaya waxa adkaan lahayd inaad hurdo fiican oo qajajacdooda ayaad ku soo kici lahayd halka haddii ay suuragal ahaan lahayd maqlidda codadka ka badan 20 kun oo hertz aynu dareemi lahayn raaxa la'aan dhagaha ah lalaba joogto ah dawaqaad iyo weliba neefta oo nagu adkaato kadiin ahaanna wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay in qofka kolka uu dhintaa haddii uu ahaa qof wanaagsan uu leeyahay idadajiya halka qofka markii uu ahaa qof xunna uu leeyahay war xagee ii wadaan sidoo kale diintu waxay inoo sheegtay in dadka qabriyada lagu cadaabayo xayawaanada oo dhan ay maqli karaan si inagu aynu maqli karin haddii aynu maqli kari lahaynna aan cabaadkooda u adkaysan kari lahayn tusaalayaashaasi maadiga iyo diiniga ahba waxay caddaynayaan in maqalka dhagaheenu uu xadidan yahay oo aanan wax waliba maqli karin sidaasi si la mid ah waxa uu saynisku caddeeyey in qoraxda iyo noocyada kala duwan ee xidigaha ay soo daayaan xaddi badan oo shucaac ah waxaana shucaacaasi loo yaqaanaa electromagnetic radiation waxuuna ka kooban yahay hirar soo dhex jibaxa isbeyska iyagoo ku socda xabaaraha ilayska waana nooc tamareed laga heli karo koonkeena xaddiga guud ee hirbaacyada ama rakaadyada uu yeelan karo electromagnetic radiation-kana waxaa loo yaqaanaa electromagnetic spectrum electromagnetic spectrum-kana waxaa loo qaybiyaa ilaa 7 qaybood iyadoo la fiirinayo hirbaacyada iyo rakaadyadooda waxayna kala yihiin gamma rays x-ray UV light visible light infrared radiation microwaves iyo weliba radio waves haddaba 7daasi qaybood kaliya waxaynu ka arki karnaa hal qaybta aan indhaheena ku arki karnana waxaa loo yaqaanaa visible light spectrum waxayna u dhaxaysaa 380 ilaa 750 nanometer halkii nanometerna waxa uu dhigmaa hal loo qaybiyay 1 bilyan oo mitir yacni waa wax aad u yar si lixda kale ma arki karno taana waxay noo cadaynaysaa inuu araggeenu xadidan yahay sidoo kale haddii aan soo qaadano tusaalaha nool ee aan wada naqaano waa ilma aragtayaasha sida bacteria iyo virus oo indhaheena caadiga ah kuma arki karno haddaba maadaama aynu maqli weyno socodka quraanjada amaba qofka ahlunaarka ee qabriga lagu cadaabay qayladiisa iyadoo ay maqlayaan dhammaan xayawaanada sidoo kalena aynu indhaheena ku arki weynay ilma aragtayaashii iyo weliba electromagnetic spectrumyadii kala duwanaa ee aan soo sheegnay sidee macquul ku tahay inaynu aragno malaa'ig laga abuuray nuur misana uu Alle subxaanahu wa ta'aala ka dhigay kuwa ayna aadanuhu arki karin ilaa goorta uu doono mooyee intaa waxaa sii dheer wax waliba aynu arki karin macnahoodu ma ahan inaysan jirin oo farxadda caqliga cabsida xuriyadda cadaaladda iyo jaceylkaba lama arki karo haddana dhammaantood waa wax jira sidaasina waxaynu ugu jawaabnay su'aashii ahayd maxaan u arki weynaa malaa'igta haddaba aynu u imaano ka jawaabista su'aashii ahayd haddii uu Alle subxaanahu wa ta'aala uu leeyahay awood ka baxsan mideena oo wax uu ahaa dhaho ay ahaanayaan muxuu Alle ugu wakiishay malaa'igta inay qabato howlo badan oo uu naftiisa koonka oo dhan u maamuli waayay dhab ahaantii su'aashani waa su'aal maran misana ku dhisan dood jaban waayo su'aal weydiiyuhu waxa uu qalad ka fahmay awoodda malaa'igta oo maba oga in awoodda ay malaa'igtu wax ku qabanayso uu yahay mid ku dhisan sabab iyo natiijo malaa'igtuna ayba qayb ka tahay xeerkaasi oo qofka kolka uu dhinto lama dhaho malkumood ayaa dilay amaba malaga roobka ayaa roob ku dilay ee waxaa la dhahaa qofkii wadnaha ayaa istaagay shil ayuu ku dhintay amaba xabad ayaa ku fakatay bal aynu soo qaadano tusaale kale oo la wada fahmi karo haddii uu nin beeraley ah uu fashto beertiisa uuna ku beerto miro digir ah deedna uu beertii roob fiican u galo dadku waxa ay leeyihiin hebel sanadkan beertiisa waa uu beertay wax fiican ayaana u soo go'aya oo waxay wada aaminayaan ninkaasi inuu shaqo fiican qabtay iyagoo aanan ahmiyad weyn siinaynin waxyaabaha kale oo ay beertu u baahan tahay sida ilays nafaqo iyo haboba waayo dadku ma arkaan falgalkooda hase ahaatee waxay arkaan ninkaas beeraleyda ah shaqada uu qabtay si xaqiiqatan shaqada dhabta ah isagu ma uusan qaban ee kaliya wuxuu la yimid ninkaasi sababta
oo shaqada dhabta ah ee biqlidda abuurka waa awood uu Rabbi subxaanahu wa tacaala la gaar yahay. sidaasi si la mid ah ayay malaga roobka, midka geerida, midka jannada iyo midka naarta shaqadooduba u gudanayaan. sadadku waxay awood u tiirinayaan malaa'igtaasi sida ay ninka beeralayga ah ugu tiiriyeen awoodii gurashada beertiisa. sidoo kale bataatanba waa qalad inuu qofku isweydiiyo Alle subxaanahu wa tacaala haddii uu wax waliba awoodo muxuu malaa'igta u wakiishay, oo meeshaasi waxaa ku qarsoon Alle subxaanahu wa tacaala wax waliba ma awoodo, sidaa darteed ayuu malaa'igta u kaashanayaa. se qofka su'aashaas isweydiinaya waxaa ka hoos baxsan inuu Alle subxaanahu wa tacaala uu malaa'igta abuuro waa awood, inuu jiritaankooda ka dhigo mid aysan aadanuhu arki karinna waa awood kale. Alle subxaanahu wa tacaala tusaale waa uu ka sareeyaa kaba soo qaad boqor ayaa maamula qaaradda Afrika oo dhan. soo boqorkaasi ma nadiifin karo musqusha qasrigiisa iyo weliba qolka jiifkiisa. dabcan wuu nadiifin karaa oo awooddeedu waa uu leeyahay, se ka boqor ahaan uma qalanto shaqadaasi oo sharafkiisa boqornimo ayay hoos u dhigaysaa midaasi. sidaa darteed wuxuu u baahan yahay boqorkaasi adeegayaal ka shaqeeya qasrigiisa. haddaba haddii uu aadanihii sidaa yahay, maxaa diidaya Alle subxaanahu wa tacaala inuu adeegayaal samaysto, adeegayaashiisana uu u doorto uunkiisa kuwa uu arko adeegaasi inay u qalmaan? jawaabtu waa waxba. sidaana waxaan ugu jawaabnay su'aalihii la xiriira malaa'igta. ugu dambaynna, haddii aad halkan nala soo gaarteen, la jirkiina farxad ayay noo tahay saaxiibayaal. inta aan barnaamijka xiga kaga kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa dunidu waa dulqaad, dadaalkuna waa muhiim.